ma ogtahay dhaawaca inaga soo gaadha qalbiga inuu ka daran yahay dhaawaca jireed ee ina soo gaadha dhaawaca jireed ee ina soo gaadha waxaad ula tagi kartaa dhakhtar kuna daweyn kara laakiin daweynta dhaawaca qalbiyeed waxa ay qaadataa karti iyo dadaal badan oo adiga ka imanaya si aad ugu guulaysato xanuunkaas marka aynu ka hadalno dhinaca qalbiga iyo maskaxda waxyaabaha ugu badan ee dadka saamaynta weyn ku yeesha ayaa ah qoomamaynta wixii hore ee ku soo dhacay noloshooda qoomamayntaas iyo sii dayn la'aanta wixii hore soo dhacay waxa ay run ahaantii sababtaa in dad badan ay noloshooda ku guulaysan waayaan ma jiro adduunkan qof ay noloshu u wanaagsan tahay maalin kasta oo qof kasta oo inaga mida waxa uu la kulmaa waqtiyo aad u adag laakiin waxaa lagu kala duwan yahay oo lagu kala hadhaa waxa weeye qof waa qof markii wixii ay dhacaan ka soo qaada sidii cashar oo kale iskuna daya inuu wixii wax ka barto qofina waa kii maskaxdiisa ka buuxiya cuqdad qoomamayn iyo calaacal joogto ah oo noloshiisa mustaqbalka iyo tan xaadirkan halkaa ku seega haddii aadan baran sida aad naftaada u cafisid iyo wixii hore ee soo dhacayba waxaad ogaataa in noloshaada mustaqbalka iyo ta waqti xaadirkanaba ay halkaa kugu seegi doonaan khayrkaana aad ka hadhi doontid waa wax la caddeeyey oo la wada ogyahay qof hadduu maskaxdiisa ka buuxiyo wanaag waxa uu la kulmi doonaa wanaag haddii uu maskaxdiisa ka buuxiyo xumaan iyo qoomamayn ah waxaad shaar la noqon doonta qoomamayntaas iyo xumaantaas waxay u baahan tahay dadaal iyo iimaan kugu filan si aad u ilowda wixii hore soo dhacay casharana ay kaaga noqdaan haddaba wakhtigaaga intaad ku lumin lahayd ka fikiritaan aad ka fikiraysid wixii hore soo dhacay waxaan kugula talinayaa in aad maanta noloshaada dib ugu noqotid aadna bilowdid qorshaha noloshaada quruxda badan ee kuu soo socota muuqaal yar oo ammaan loo daawanayay ayaa waxaa la weydiiyey dhowr qof oo 80yadii kordhaafay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay noloshooda ku qoomeeyeen waxyaabaha ay sheegayeen waxaa ka mid ahaa arrintan aanu ka hadlana iminka oo ah qoomamayn in wakhtiga ay noolaayeen ay badankooda ka qaateen qoomamayn iyo ilowsho la'aan aanay laawin wixii hore ku dhacay taasoo saamaysay iyaga 2 jeer mar waa wakhtiga ay markaa ku jireen oo aanay ka faa'iidaysan mar labaadna waa noloshooda mustaqbalka oo ka xumaatay haddaba si aadan dadka uga mid noqon daawada halkaa ku jooji wax kasta oo qoomeen ah isla waqti xaadirkan la joogana bilow ka fikiritaanka noloshaada quruxda badan ee ku soo socota والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.